halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabti ah 9 bisha Abriil ee sanadka 2022 idaacadda duhurnimo waxay idinla socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ruushka oo wax ka beddelaya hoggaankiisa military ee Ukraine baydhabo oo la filayo in gelinka dambe ay dib uga bilowdaan wadahadallada u dhaxeeya wafdiga halkaa jooga iyo madaxda maamulkaasi salaadiinta koonfur galbeedna waxay cabashadoodu tahay ra'iisul wasaaraha asaga iyo madaxweynaha khilaaf ka dhaxeeyo rabaa in uu koonfur galbeed iyo Fahad Yaasiin ka gudo marka xoogaa waxaad moodaa faras dameeraha ku jira in la rabo in fardaha laga gubo mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee Tigray oo sheegay in colaadda gobolkaas ay ka hor istaagtay in bukaanada qaba xanuunka kansarka ay daweyn helaan qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacadan duhurnimo oo uu soo saaray Axmed Nagashe balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Cabdifataax Ibraahim Cagayare mahadsanid Kawthar dowladda ruushka ayaa qaab cusub oo military ku howlgelin doonta ciidamadeeda jooga waddanka Ukraine kadib markii ay magacowday generaal dowr muhiima ka qaatay duqeyntii ruushka uu ka geystay waddanka Suuriya sargaal reer galbeed oo sare ayaa BBC-da u sheegay in generaal Alexander Dovharnikov uu diiradda saari doono isku xir wanaagsan oo u sameeya ciidamada dalkiisa saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in la isla gartay in maanta uun la sameeyo 10 marin oo bini'aadamnimo ay maraan dadka ku xayiran gobollada ay go'doomiyeen ciidamada ruushka marinadaas ayaa waxaa ka mid ah mid loogu talagalay in ay ku baxaan dadka weli ku xayiran magaalada burburtay ee dekedda leh ee Mariupol injineerka howlgala warshadii hore ee nuclearka ee Chernobyl ee waqooyiga waddanka Ukraine ayaa BBC-da u sheegay in dadaal badan uu geliyey sidii looga gaashaaman lahaa in musiibo nuclear ay ka dhacdo warshadaasi waqtigii ay haysteen ciidamada ruushka Valery Simonov ayaa sheegay in isaga oo shakhsiyan uu dhibaato badan u maray sidii uu shidaal uu ku shaqeeyo uga heli lahaa matoorka korontada siiya goobtaasi falal ay carag ku dheehan tahay ayaa ka dhacayay baarlamaanka waddanka Pakistan kuwaas oo u dhexeeyay taageerayaasha iyo mucaaradka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan ka hor codka kalsoonida ee ninkaasi loo qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa hakiyay doodda baarlamaanka walow ay dooddu haatan dib u bilaabatay khudbada xalay xilli dambe uu jeediyey ayuu Mr Khan waxa uu ku adkaystay inuu dhibane u yahay mu'aamarad caalami ah oo uu soo maleegay Mareykanka eedaas oo Washington ay iska fogeysay maray BBC-da la hadlaysay hogaamiyaha xisbiga dadka ee Pakistan ee mucaaradka ee ka tirsan sanadka dalkaasi ayay Sheri Rahman iyadoo ka falcelinaysa sheegashada Mr Khan ee in Mareykanku uu ku lug leeyahay isku dayga lagu tuurayo dowladdiisa waxa ay tiri On one level, it's a very serious charge because marka dhan laga eego waa eedayn aad u culus sababtoo ah waa wax iska cad ma ahan keliya in dal shisheeye sida Mareykanka oo kale uu doonayo isbeddel xagga maamulka ah balse waxaa sidoo kale muuqata inuu khilaaf ka dhaxeeyo kuwa doonayo inay meesha ka saaraan iyo xubnaha isaga ka soo horjeeda ee codaynaya tan saddexaad waxa uu dalka ka abuuray siyaasad laba geesood ah thirdly he's created a political binary in the country ugu dambeynna wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Israa'iil ay toogasho ku dileen nin Falastiini ah oo ku jiray xero qaxooti oo ku taal daanta galbeed ee la haysto 5 qof oo kale ayaa waxaa lagu soo warramay inay dhaawacmeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay galeen guriga qoyska ninkii hubaysnaa ee rasaasta Khamiistii la dhacay baar ku yaal Tel Aviv kaas oo ku yaal xerada waa guriga la galay ee xerada Jenin weerarka Tel Aviv ayaa waxaa ku dhintay 3 qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 10 qof wararka caalamkana waa naga inta Kawthar aad baad u mahadsan tahay Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo inala socodsiinayay warkii dunida ayuu ahaa halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da u diyaar garoowa markana qaybaha kale ee idaacadeena duhurnimo waa tahay duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen ruushka ayaa tilmaamay qaab cusub oo ciidamadiisu wajihi doonaan howlgallada ay ka wadaan Ukraine
isagoo soo magacaabay jenaraal door weyn ku lahaa duqayntii uu ruushka ka fuliyey suuriya. sarkaal sare oo reer galbeed ah ayaa b b c da u sheegay in jenaraal alexandra uu xoogga saari doono isku xirka ciidanka, iyadoo madaxweyne putin uu howlgallada u wareejiyey gobolka donbas ee bariga waddanka ukraine. dowladda ukraine ayaa ku rajo weyn in dad badan ay maanta ka baxsan doonaan aagaga ay go'doomiyeen ciidamada ruushka. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed nagaasho oo istuudiyaha igu weheliyey. axmed, oo marka ugu horeysa jenaraalkan lasoo magacaabay, siduu wax ugu bedelayaa dagaalka socda? kowsaray jenaraalkan waxaa lagu sheegaa nin aqoon badan u leh ciidamada cirka oo muddo ka soo shaqeeyey, waana taliyo qaybeed oo weliba qaybta koonfureed ee ruushka ayuu ahaa. ninkan sidoo kale waxaa la sheegaa, waxaa la yidhaahdaa alexander dorninikov, waxaana la sheegaa inuu door weyn ku lahaa suuriya markii uu ruushku gargaarayey fallaagadii la diriraysay dowladda bashaar al asad, oo duqayn baahsan uu ka sameeyey ruushku iyo ciidamadii dowladda suuriya. marka ninkan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin istaraatiijiyadda iyo isku xidhka milatarigana aada ugu fiican, iyo xidhiidhka iyo dhiirigelinta saraakiisha yaryar iyo dablayaashaba, sidoo kalena aqoon durugsan u leh qaabka weerarada cirka loo fuliyo iyo duqaymaha sida gaarka. waxaana loo malaynayaa in ujeeddada haatan loo soo magacaabay howlaha loogu dhiibay tahay waa ta koowaade sidaad adiguba carabka ku dhufatay, isku xidhka guud ee ciidamada ruushka ka dagaalamaya dhinacaas, iyo iyadoo la filayo in guluf hor leh guud ahaanba gobolada bariga ee ukraine uu ruushku mar labaad xoogga saaro, oo maryahanba waa kii dib uga guranayay dhinacan duleedka caasimada kiev iyo meelaha ku gadaamanba. marka maadaama oo gulufka xooggale la rabo in dhul badan lagu qabsado, dabeetana inta ay wadahadalladu socdaan ruushka kafadiisu ay dhinac u raajaxdo, sidoo kalena guulo la taaban karo uu u soo hooyo inta aan la gaadhin bartamaha bisha May, oo uu u dabaaldego ruushku guud ahaanba guulihii uu ka gaadhay dagaalkii labaad ee dunida. ayaa waxaa loo malaynayaa in Putin iyo saraakiisha sarsare wasaaraddiisa difaacu ay doonayaan wax la taaban karo inay dadkooda tusaan, ninkaasina hoggaan u noqdo. in dad badan ay ka baxaan magaalooyinka go'doonsan ayaa la rajaynayaa baa laleeyahay. maxaa kalifay in hadda dadka badankoodu ay ka baxaan meelahaas? waxaa kalifay in ay furmeen marinadii la doonayey oo muddo wadahadalkoodu socdo lahaa marino gargaarka la mariyo iyo kuwo biniaadanimo ay dadka rayidkii kaga baxaan magaalooyinka go'doonsan, weliba magaalada dekeda ee mariupol la yidhaahdo, oo muddo uu ruushkuna lahaa waa in ogeysiin dhabana la siiyaa oo uu la socdaa. hase yeeshee mar dhexdaasa waxaa soo baxday in diyaaradaha ruushka ee dagaalku ay duqeeyeen dad doonayay magaalooyinka inay ka baxaan, dabeetana hakad baa yimid, wadaxaajoodan baa la galay, iyadoo ay dhexdhexaadinaysa markaa laanqeyrta cas iyo hay-adaha kale gargaarkii. iminka markaa ilaa tobaneeye marin inay bannaanaadeen baa la sheegayaa, waxaana la filayaa inay halkaasi maraan. aan ku noqde kowsaray, markii uu soo baxay warkaasi ah in generaalkaasi uu ruushka usoo magacaabay dhinacaasi, ayaa waxaa ka falceliyey xukuumadda ukraine lafteedu. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ukraine oo weliba ka tirsan xisbiga madaxweynaha dalkaasi ayaa iyadoo si jees-jeesa uga hadlaysa in generaalka cusub la magacaabay ayaa waxa ay tidhi inaan waxba soo kordhin doonin, waxaana hadalkeedii ka mid ahaa. Our army is not afraid of any general because they want to punish everyone. ciidamadeennu kama baqayaan jenaraal kasta, sababtoo ah waxay doonayaan inay ciqaabaan qof walba oo ku lug lahaa dagaalkan. marka taa waxba kama beddelayso militarigeenna. dabcan way ka warhayaan isbeddeladan, waxayna ila tahay in Putin uu doonayo inuu helo istiraatiijiyad kale ama waddo kale, sababtoo ah wuxuu arkaa in qorshihii uu lahaa uusan ku guulaysan. Strategy or way because he sees that his plans, didn't achieve the goal. taasi waxay ahayd xildhibaan ka tirsan xisbiga talada dalka Ukraine haye madaxweynaha oo dhaliilaysay weliba lahayd inaan waxba soo kordhin doonin generaalka cusub ee loo soo magacaabay ciidamada ruushka Kowsaray. axmedow, wararku waxay sidoo kale sheegayaan in Chernobyl ay haatan gacanta ciidamada Ukraine ku soo noqotay, walow shidaalku gabaabsi ku yahay warshadaas. bal horta warshadan maxay tahay, maxayse tahay cabsida laga qabo? warshadani horta imika wax badan oo leydh oo ay dhalisaa ma jirto, laakiin markeedii hore waxaa la dhisay xilligii midoogii Sovieti, waxaanay ahayd meeshii ugu horeysay ee laga dhalinayay in ay quwadda korontada ee weliba nuclearka laga dhaliyo. xilligii Sovietka la sameeyey, dabeetana markii ugu horeysay waxaa la sameeyey mid keliya. markii dambe la arkay faa'iidada ku jirta ayaa Sovietkii ay kordhiyeen meelihii korontada dhalinaya nuclearka laga dhalinayay. dabeetana waxaa dhacday sanadkii 86kii inuu qarax dhacay, dabeetana dad badan ay meeshii ku baaba'een oo xataa magaalo u dhow gebigeedaba dib looma degin,
ilaa haatadan waxaa laga baqaa shucaacii iyo suntii nucleerku inay dadka dhibaato siiso. markii dambe soviyedkii uu burburay iyo intii uu sii jiray uu gabaabsiga ahaaba dunida markii dambe isugu timid waxaa la go'aansaday bal markaa in la dahaadho dabeetana sabad aad u culus oo mar walba ay tahay in lala socdo marka wax lagu kordhinayo iyo marka laga jarayo ayay dunidu ka shaqaysaa. marka markii uu soo galeen ruushku markiiba iyaga meesha gacanta ku dhigay dabeetana shidaalkan markaa la sheegaya korontadan meesha laga dhaliya ma aha oo keliya inay magaalada u dhow iyo ay dab siiso, laakiin xataa qalabkan meeshan lagula socdo ayaa korontada ay ku shaqaynayaan baahi weyn loo qabay. marka maadaama uu shidaalka gabaabsi ahaa, injineer ka shaqeeya oo reer Ukraine ayaa wuxuu sheegayaa xataa inuu naftiisa u biimeeyey oo mararka qaarkood ay qasab ku noqotay in xeryaha ruushka ee ciidamada ay ka soo xadaan shidaal ay ku socodsiiyaan. axmed nagaashi aad buu u mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Ukraine nala socodsiinayay. markana mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in colaadda Tigray ay ka hor istaagtay in bukaanada qaba xanuunka kansarka ay helaan daweyn si noloshooda loo badbaadiyo. isbitaalka Aider Comprehensive ayaa u adeega 9 milyan oo qof oo ku nool gobolkaasi Tigray. warkan waxaa soo dirtay wariyaha BBC-da Joyce Etutu. waa kan Mucaawiye Maxamed Buraale oo soo jeedinaya. dhakhaatiirta waxay sheegeen in dagaalka ka socday gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya uu horseeday in nidaamyadii caafimaadka ee gobolka ay qarka u saaran yihiin inay burburaan. 5 sano ka hor ay ahayd markii uu isbitaalka bilaabay inuu bixiyo adeegyada lagu daryeelayo bukaanada ku dhacay kansarka. haatanna maamulka waxay sheegeen inaysan qaabili karin carruurta iyo bukaanada la daala dhacaya kansarka. dhakhaatiirta ayaa lagu qasbay in bukaanada ay u diraan guryahooda si ay u dhintaan halkaasi. taasina waa xaaladda adag ee wajahayaan dhakhaatiirta Tigray xilli gobolka ay si weyn u saameeyeen dagaalada, iyadoo gabaabsi uu ku yimid dawooyinkii adeegyada muhiimku ah bukaanada uu ku dhacay xanuunka kansarka. isbitaalka Aider dhakhaatiirta waxay noo sheegeen in ka badan 1700 oo bukaan oo kansar qaba ay halis ugu jiraan dhimasho sababtoo ah wax kasta gabaabsi ayaa ku yimid laga bilaabo shaybaarka iyo dawooyinka. waxay xitaa bilaabeen inay ku daweeyaan bukaanada dawo dhacday sababtoo ah ma awoodaan inay u gudbiyaan bukaanada xarumaha caafimaadka ee ka baxsan gobolka. isbitaalka ayaa u baaqay wasaaradda caafimaadka ee Itoobiya inay u soo dirto agabka caafimaadka ee muhiimka ah si loo gudbo dhibaatadan. aad buu u mahadsan yahay Mucaawiye Maxamed Buraale oo inala socodsiinayay warkaas ay soo dirtay wariyaha BBC-da Joyce Etutu. weli halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay markana wararka Soomaalida aan eegne. magaalada Baydhabo waxaa la filayaa in gelinka dambe ay dib uga bilowdaan wadahadallada u dhaxeeya wafdigii shalay halkaas gaaray iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed. shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka soo cusboonaaday doorashada Soomaaliya kadib markii guddiga doorashooyinka ee heer federaal ay ku adkaysteen in lagu laabanayo 4 kursi oo horey loogu tartamay. wafdiga jooga Baydhabo uu hogaaminayo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay wehelinayaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka cusub ee federaalka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba sida arrinta kala qaybsanaanta keentay lagu wajahayo. haddaba si aan u helno wararkii ugu dambeeyey ee kulamada Baydhabo waxay nooga waramaya wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo hadda khadka Luzi Live-ka toos ugu jira. Ibrahim, noo waran xagee wax marayaan? kowthar inkastoo xalay waqti dambe ay isla gaareen madaxda wadahadalladu ay u dhaxeeyaan maantana ay tahay maalin Ramadaan oo weliba maalin kulul ay tahay waxaa kulamada dib loogu dhigay afurka kadib waxaana kulamada xoogooda lagu eegayaa sidii xal loogu heli lahaa tabashada maamulka Koonfur Galbeed uu ka qabo guddiga doorashooyinka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ku saabsan celinta guddiga doorashooyinka heer federaal ay dib u celiyeen 3 kursi oo ka mid ah kuraastii lagu doortay Koonfur Galbeed oo ay sheegeen inaan loo marin habraacyadii saxda ah yeeshee Koonfur Galbeed ku adkaysanaysay in xildhibaanadaasi loo maray doorashadooda habraacyadii markii horeba lagu heshiiyey. sidaas daraaddeedna ay tahay in la aqbalo oo ay shahaadada qaataan. waxaad ogtahay in xildhibaano aad u fara badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo aan shahaadada qaadan inay dib ugu laabteen magaalada Baydhabo iyagoo garab istaag u muujinaya xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay ee la yiri kuraastooda ha lagu laabto. wadahadallada xalay ee waqtiga dambe gaaray inkastoo wafdiga halkaasi tagay oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaaminayay ay laftigooda ku kala aragti duwanaayeen sida lagu xalinaya arrintan. xildhibaano ka tirsan wafdigiisa ayaa soo jeediyey in marka hore xildhibaanada Hello Ibrahim. waa tahay ilaa 3 xildhibaan oo ka tirsan waa ku maqlayaa Ibrahim.
ilaa xildhibaano ka tirsan wafdiga madaxweyne qorqor ayaa waxay soo jeediyeen in marka hore xildhibaanada koonfur galbeed ay qaataan shahaadada kadibna dib laga xaliyo xildhibaanada kale oo guddiga doorashooyinka ay shahaadada u diideen oo la yidhi waa in doorashadooda lagu laabtaa laakiin maamulka koonfur galbeed wuxuu ka adkaysanayaa in xildhibaanada ka yimid muqdisho ee ka tirsan koonfur galbeed ay iyagu markii horeba dookooda ku yimaadeen iyagoo garab istaag u muujinaya xildhibaanadaas kale islamarkaana iyaga ku xiran tahay haddii ay muqdisho ku laabanayaan oo ay shahaadada qaadanayaan dabcan marka caawa ayaa mar kale laisu soo laaban doonaa iyadoo wadahadallada halkaas laga sii ambaqaadi doono Kawthar. ibraahim oo marka goormaa la filaya in lasoo gabagabeeyo shirarkaas ay baadhidhabo ku leeyihiin madaxda koonfur galbeed iyo hirshabelle? shirarka koonfur galbeed iyo galmudug wadahadallada waxaad moodaa in hadba sida xal loogu raadinayo dooda 4 kursi kasoo laabatay inay hareyn doonto laakiin waxaad moodaa in dhinacyaduba ay markii horeba ku kala aragti duwanaayeen arrintan qaar ahaan wafdiga madaxweyne axmed cabdikaariye qorqor laakiin waxaa jira shirar kale oo u socda xildhibaanadii muqdisho kasoo laabtay iyana baydhabo joogay oo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka iyo kulamada lahaa iyaga waxaa la filaya caawa ilaa inay shirarkooda soo gabagabeeyaan oo ay warmukiyad ka soo saaraan kan kale ee madaxweyne axmed cabdikaariye qorqor hogaaminayana waxaa la filayaa ilaa caawa inay sii socdaan ilaa berrito marka wixii berrito loo gaara ayaa la filayaa in shirarkaasi Kawthar ay soo dhammaadaan. aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadka toos ugu jiray. dhanka kale waxa ay b b c du la hadashay ugaas malaaq ibraahim macalin cali oo ka mid ah salaadiinta koonfur galbeed ee ka eed sheeganaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal. waxa uu u waramay wariyaha b b c da cabdiqaadir yuusuf cali oo marka hore weydiiyey waxa ay ka cabanayaan. walaal waxaan ka cabanaynaa waad og tahay horta Soomaaliya waddanka oo dhan baa doorasho dadban ka dhacday marka cabdiqaadir odayga waxaad moodaa xoogaa khilaaf isaga iyo nin kale ka dhaxay inuu nagula dul dhacay doorashadii dadbaneed oo meelaha qaarba qoril isu qaatay oo dad ku dhinteen koonfur galbeed dad kuma dhiman qoril isuma qaadan hadday wax khaldameen dalka oo dhan bay ka khaldan yihiin ra'iisul wasaaraha isaga iyo madaxweynaha khilaaf ka dhaxeeyuu rabaa in koonfur galbeed iyo Fahad Yaasiin ka gudo marka xoogaa waxaad moodaa faras dameeraha ku jira in la rabo in fardaha laga gubo. ugaas marka ma la xiriirteen mas-uuliyiinta aad ka cabanaysaan? ha waa lala xiriiray kolleyba madaxweynaha iyo dadkii mudnaa inay la xiriiraan way la xiriireen xoogaa wuu isku adkeeyey de xaqna uma leh isaga xaq uma leh dad laga doortay koonfur galbeed sida gobollada kale unbaan anagu u nahay dowladda ma ogiye dad gaar ahoo de gacan tugaaleen toos looga samayn kara anagu ma nihin dadkaan la mid nahay gobol laga xukumo dowladda federaalka waa nahay ra'iisul wasaaraha laakiin xoogaa ulees aanan xaq u lahayn buu na soo saaray. sidaan ognahayba koonfur galbeed dowlad ayay leedahay oo waxaa ka hadlay arrintan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale idinkana waxaad tihiin odayaal dhaqameed arrintanna waa arrin siyaasadeed marka adinka waxaad faraha la gelaysaan soo ma ahan howl aan hawshiin ahayn? maya doorashadaba annagaa xaq u leh qof iyo cod ma aha madaxweynaha inuu intuu ka hadli lahaa in annaga ka hadalnaaba xaq annagaa shuqul ku leh doorashooyinka gobolka la iska doortayna annagaa doorashada maamulnay odayaasha ah hadday xun tahay hadday wanaagsan tahayba marka doorashada markay qof iyo cod gaartay siyaasiyiintu ka wada hadli karaan laakiin hadda annagaa iska leh. malaaq haatan dadaalo ayaa socda oo arrintan xal loogu raadinaya waxaana magaalada baydhabo ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqor marka soo cabashadiina uma muuqato mid ka hor dhacaysa dadaaladaas maxaase diidaya inaad sugtaan natiijada ka soo baxda dadaaladaas? maya kama hor dhacayno annagu qorqor hadduu noo yimid mas-uuliyiinta Soomaaliyeed uu ka mid yahay maantaba ra'iisul wasaarahan dalbanay isaga hadduu noo yimaadana ra'iisul wasaaraheeni waay waxa dadaal ah oo aan ka hor dhacayno male dad nabad diidayana ma nihin annagu nabad waa nala ku ogyahay ilaahay hadduusan diidin dadaal walba oo wanaag keenayana diyaar baan u nahay inaan la shaar garayno oo dadka la wada hadalno ma annagu dhibaato kale ma qabno kuraastii laga gudbiyey koonfur galbeed in la kala qaqabo oo qaarna la reebo qaarna la qaataan diidaynaa ma ogi wax kaloo dhibaato ma qabno nacab ra'iisul wasaare ma qabno dhibaato kaloo na hayso male laakiin kuraastii laga doortay koonfur galbeed in qaarna lagu dhego qaarna la sii daayo oo dadkii la siyaasadeeyaan diidaynaa ra'iisul wasaaraha maanta waan u sheegnay waa ka codsanay waxaan ugu baaqnay inuu iska sii daayo kuraastaasi xilli hadda khilaaf la koriye ma aha Soomaaliya xaaladeedu waa mid ilaahay og yahay xilligii la isku celcelin lahaa loo nabad doonayn lahaa baa la joogaa marka tafraaruq iyo dhibaato iyo dowladda waad og tahay hadda 2 sano ay sii jiitamaysaa doorashadii xilligii la rabay marka waxaan rabnay kuraastii laga gudbiyey halkan sidooda in loo
qaato culays kaloo siyaasadeed hadduu jiro madaxday qusaysaa laakiin doorashadan diidaynaa in laka siyaasadeeyo koraastii koonfur galbeed ka gudubtay waa isku mid in kuwana la xalaaleeyo kuna la xaarantameeyaan diidaynaa keliya ra-iisul wasaarahana ma necbin dowlad diidna ma nihin derisna ma necbin insha allahu tacaala dad sharci diidayana ma nihin inagu ugaas malaaq ibraahim macalin cali ayuu kaasi ahaa ee markana facebookana eegoo dhegeystahan magaciisu yahay maxamed ismaaciil oo jooga ceelbuuq waxa uu leeyahay shirka la filaya in gelinka dambe ee maanta uga bilaabmo baydhabo wufuudii halkaasi gaadhay iyo maamulka koonfur galbeed waan soo dhaweynayaa waxaana rajaynayaa in xal waare laga gaari doono lana xalin doono tabashadii ay qabeen maamulkaas xamde muuse saalax oo baran joogtan waxay leedahay waan soo dhaweynayaa dadaalka halkaas laga wado waxaana rajaynayaa in dadaalkaas in uu noqon doono mid miro dhala siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa inay shacabka u turaan islamarkaana aysan dantooda iyo nin jeclaysi wax ku doonin balse ay raadiyaan markasta danta shacabka soomaaliyeed way mahadsan yihiin waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da aragtidooda dhanka facebooka noo soo mariyey aan markana ciyaarihii eegna ee kulamada ingiriiska ee premier leaga galabta waxaad toos u dhegeysan doontaan oo b b c da idiin soo tabin doontaa ciyaarta dhex mari doonta Southampton iyo Chelsea saacada Afrikada bari marka ay tahay 5 galabnimo oo gow ah markana baafinta maanta waxaa stuudiyaha b b c da Nairobi si toosa idinkaga soo tabinaya anigoo ah Jamaal Axmed Abdiraxmaan iyo Fartuun Ismaaciil Fartuun mahadsanid Jamaal baafinta ugu horeysay maanta waxay naga soo gaartay Cabdullaahi Muumin Maxamed waxa uu baafinayaa Axmed Muumin Maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku soo dalka Uganda sanadii 2013 haddaba haddii uu namaqlayo أحمد مومن محمد أما يجرت عد قرنيسة فالله وركيز هلا قارسية عبد الله مومن محمد يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافنت بش عسى كل هذا هاي دولة ديغان كسومالي دي توبيا محمد مختار عثمان وحاو بافنا يا حليمة مختار عثمان ووردن بيسيدة كونات سومالي سنة لبدا كون سديدي تبانكي هذا بهدينا مغليسو حليمة مختار عثمان أما يجرت عد قرنيسو فالله وركيز هلا قارسية محمد مختار عثمان يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافنت بش عسى كل هذا هاي اللوين cabdulaahi ibraahim aadan waxa uu baafinayaa tamiimo ibraahim aadan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada boosaaso sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso tamiimaha ibraahim aadan ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiya cabdulaahi ibraahim aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casee ku leedahay helaweyn cabdiweli xareed waxa uu baafinayaa farduuso maxamed cabdi oo ugu wardambeysay iyadoo ku nooled dalka soomaaliya sanadii 2018 haddaba haddiina maqlayso farduuso maxamuud cabdi ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiweli xareed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha casee ku leedahay helaweyn cali cismaan daahir jilibey waxa uu baafinayaa maadey jirow cabdiraxmaan waxa uu wardambeysay isagoo kusoon dalka yeman sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo maadey jirow cabdiraxmaan ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali cismaan daahir jilibey iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay helaweyn qadar cali nuur waxa uu baafinayaa salaad cali nuur oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sanadii 2011 haddaba hadduu ina maqlayo salaad cali nuur ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo qadar cali nuur iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay helaweyn farxiyo maxamed cabdulle waxay baafinaysaa xasne maxamed cabdulle waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 2017 haddaba haddii ayna maqlayso xasne maxamed cabdulaahi ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo farxiyo maxamed cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay helaweyn xasan maxamuud wuxuu baafinayaa salma maxamuud oo ugu wardambeysay iyadoo ku nooled dalka soomaaliya sanadii 2012 haddaba haddii ina maqlayso salma maxamuud ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xasan maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay helaweyn haaruun sheekh cali waxa uu baafinayaa dadka kale ah fartuun sheekh cali iyo cabdikaafi sheekh cali waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka kenya sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan fartuun sheekh cali iyo cabdikaafi sheekh cali ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiya haaruun sheekh cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay holaweyn faatuma maxamed nuur waxay baafinaysaa cabdi cali xasan oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi cali xasan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faatuma maxamed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay helaweyn
aadan dhaqane cabdulaahi waxa uu baafinayaa xuseen dhaqane cabdulaahi waxa uu wardambeysay isagoo kusugan dalka soomaaliya sanadii 2019. haddaba haddii uuna maqlayo xuseen dhaqane cabdulaahi ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiya aadan dhaqane cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. maaday isaaq waxa uu baafinayaa fayley aadan xasan ugu wardambeysay ida kunoole dalka soomaaliya sanadii 2017. haddaba haddayna maqlayso fayley aadan xasan ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maaday isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. cismaan cabdi aadan waxa uu baafinayaa xasan cabdi aadan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan jowhar sanadii 2001. haddaba haddii uuna maqlayo xasan cabdi aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiya cismaan cabdi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. wiilo aadan isaaqa waxay baafinaysaa daahir aadan isaaq oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sanadii 2001. haddaba haddii uuna maqlayo daahir aadan isaaq ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo wiilo aadan isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. muslimo samaan bare waxa ay baafinaysaa cabdiraxmaan cali ducaale waxa uu wardambeysay isagoo kusugan dalka sacuudi carabiya sanadii 2009. haddaba haddii uuna maqlayo cabdiraxmaan cali ducaale ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiya muslimo samaan bare iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. zakariya axmed jaamac waxauu baafinayaa farxiyo isaaq maxamuud ugu wardambeysay idoo kulana dalka kenya sanadii 2018. haddaba haddayna maqlayso farxiyo isaaq maxamuud ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo zakariya axmed jaamac iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. luula ibraahim samow waxay baafinaysaa aamine ibraahim samow waxa uu wardambeysay iyadoo kusugan dalka soomaaliya sanadii 2000. haddaba haddii ayna maqlayso aamine ibraahim samow ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo luulay ibraahim samow iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. cabdiqaadir maxamuud isaaq wuxuu baafinaya waali maxamuud isaaq oo ugu wardambeysay iyadoo ku noole dalka soomaaliya sanadii 2016. haddaba haddayna maqlayso waali maxamuud isaaq ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiqaadir maxamuud iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. raaxa cabdi mustafa waxa ay baafinaysaa cali cabdikariin maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka kenya sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo cali cabdikariin maxamed ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiya raaxa cabdi mustaf iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. siyaad cabdi xasan waxa uu baafinayaa muraayo cabdi xasan ugu wardambeysay iyadoo ku noole dalka kenya sanadii 2015. haddaba haddayna maqlayso muraayo cabdi xasan ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo siyaad cabdi xasan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. ciise maxamed abukar waxa uu baafinayaa bilow maxamed abukar waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 2003. haddaba haddii uuna maqlayo bilow maxamed abukar ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ciise maxamed abukar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. shindhaaye cali xasan waxay baafinaysaa ardo cali xasan ugu wardambeysay iyadoo ku noole dalka soomaaliya sanadii 1990. haddaba haddayna maqlayso ardi cali xasan ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo shindhaaye cali xasan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. iftiin jaamac cali waxa ay baafinaysaa barwaaqo jaamac cali waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso barwaaqo jaamac cali ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiya iftiin jaamac cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. xalwa macalin khayraad waxay baafinaysaa shukri cali nuur oo ugu wardambeysay iyadoo ku noole dalka soomaaliya sanadii 2009. haddaba haddayna maqlayso shukri cali nuur ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xaawa macalin khayraad iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hiloweyn. fartuun xasan xuseen waxa ay baafinaysaa cabdi xasan xuseen waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 2019. haddaba haddii uuna maqlayo cabdi xasan xuseen ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiya fartuun xasan xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn. cabdulaahi xasan maxamuud wuxuu baafinayaa isaaq xasan maxamuud ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 2010. haddaba hadduu ina maqlayo isaaq xasan maxamuud ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdulaahi xasan maxamuud iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hiloweyn.
baafinta ugu dambeysay maantan waxay naga soo gaartay maxamed cabdulaahi maxamed waxa uu baafinayaa xasan cabdulaahi maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan jowhar sanadii 2019 haddaba haddii uuna maqlayo xasan cabdulaahi maxamed ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyey maxamed cabdulaahi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay helloweyn baafintiina waa inaga intaa fartuun iyo jamaal way mahadsan yihiin idaacaddii duhurnimona waa naga intaa ee nabadgelyo